kulan ay maanta isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ee Somaliland ayaa waxa ay kaga hadlayeen ama soo jeedkiisu ahaa sidii loo joojin lahaa ama se loo xakameyn lahaa gudniinka fircooniga. kulankan ururada bulshada rayidka ay maanta ku yeesheen magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka soo saareen qodobo, waxaana halkaasi qodobada ka akhriyay Nafiisa Cabdiwahaab oo kamid ah ururada bulshada rayidka ee Somaliland. ururada bulshada rayidka ee Somaliland iyaga oo muddo dheer ku hawlanaa wacyigelinta iyo u doodida in la helo siyaasad xakamaysa gudniinka hablaha, siyaasad badbaadisa hablaheena, siyaasad ciribtirta gudniinka hablaha lagula kaco, sidaas oo ay tahay waxa ay maanta ururada bulshada ee ka hawlgala Somaliland isugu yimaadeen kulan ay ku lafagurayaan xal u helida ciribtirka gudniinka hablaha, iyaga oo ka duulaya sidii loo heli lahaa siyaasadda gudniinka hablaha. arrintaas oo looga fadhiyo dawladda Somaliland ansixinta siyaasadda gudniinka hablaha soona afjaraan dhibaatadan taagan. ururada bulshadu waxa ay si wada jir ah u soo saareen qodobadan. kow, waxaanu u soo jeedinaynaa dawladda Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golaha wasiiradu in ay ansixiyaan siyaasadda ciribtirka gudniinka hablaha. laba, waxa xukuumadda laga codsanayaa in ay soo saaraan xeer ciqaabeed ku saabsan gudniinka hablaha oo qabanaya cid walba oo ku talaabsata in ay gudaan hablaheena. saddex, in ay xukuumaddu baaq dawladeed u dirto dhammaan bulshada reer Somaliland kuna wargeliyaan in ay ku dhaqanka gudniinka habluhu ka mid yahay ku tumashada xuquuqda aadamaha. afar, waxa laga codsanayaa madaxweynaha golaha wasiirada oo ay hogaaminayso wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada Somaliland in ay soo saaraan baaq qaran oo lagu badbaadinayo hablaheena. shan, waxa laga codsanayaa waalidiinta reer Somaliland in ay na garab istaagaan nalana badbaadiyaan hablaheena. lix, ugu dambeyntii waxaanu dhammaan reer Somaliland ka codsanaynaa waalidiinta inay nagula hawlgalaan ciribtirka gudniinka hablaha. waxaanu u mahad celinaynaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysata iyo cid walba oo looga fadhiyo in ay kaalin mug leh ka geysato ciribtirka gudniinka hablaha. waxaanu filaynaa in dawladda Somaliland oo ay hormuud u tahay wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshadu in ay soo afjarto dhibta gudniinka gabdhaha. Cabdirashiid Cali Barre, SABC TV, Hargeysa.